بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين haddii aan uga marka ciwaankeena waxa uu leeyahay rules to solve the LDE by operating method yacni ruleska ama sharciyada lagu xaliyo linear differential equation anagoo isticmaalayno methodka ugu horeeya loo yaqaano operating method by operating method anagoo isticmaalayno yacni ruleska lagu xalinayo differential equationkaaga waa maxay rulka koowaad waxaa weeyaan in yacni differential equationka complete solutionkiisa waxaan ka hadlaynaa homogeneous aan ka hadlaynaa anaga maanta waxaan ka hadlaynaa waa maxay waa homogeneous marka uu yahay macnaha homogeneous it means equal to zero marka uu yahay equal to zero marka uu yahay marka complete solutionkaaga marka wuxuu kula ekaan doonaa c1 e power m1 into x plus c2 e power m2 into x plus c3 m3 into x plus c4 e power m4 into x qaabkaas ku doontaa macnaha meeshan aan 1 aan ka dhigna c1 c2 c3 c4 ku doontaa m1 m2 m3 m4 m5 ku doontaa ilaa ay meesha markaa kaga ekaato si aan markaa si fiican ugu sii faahno bal aan sameyn example kan matalan waxaa lagu sii kara matalan d cubic y oo loo qeybiy dx cubic minus 13 dy by dx plus 13 into y is equal to 0 matalan lagu sii kale masala marka qaabka marka lagu sii marka ugu horeyn horta waxa u sameynaydaa qaab loo yaqaan markaa symbolic form maxaa la lahaa marka symbolic form it means يعني مسألة waxaa u qortaa d form ahaan hore waxaa usoo qaadanay meesha dy by dx ku aragtay d ahaan inaan u qorno usoo qaadana macnaha waxaa leenaha markaa d cubic minus 13 d plus 12 whole into waxaa ku dhacsan kulligood y is equal to 0 qaabkana waxaa loo yaqaanaa symbolic form waxaa loo yaqaanaa symbolic form ayaa loo yaqaanaa qaabka marka symbolic formka markaa u diyaarisa marka intaan dhaxa ka soo qaadanaya marka kuushka qaybtiisa dhaxa ka soo qaadanaya qaybtiisa dhaxa waa maxay waa d cubic minus 13 d plus 12 intaan soo qaadanaya waxaa leedahay waxay kula mid tahay 0 qaabka marka u qortan waxaa loo yaqaanaa ae means auxiliary equation waxaa loo yaqaanaa auxiliary equation auxiliary equation loo yaqaan marka auxiliary equation ka marka aad soo hesha marka scientific gelinaya hadii aad rabtana yani waa equationska caadiga ah soo barto yani formka soo barta gacanta ku xalin kartaa hadii aad doonto by scientific equation ku xalin kartaa by factorization ku xalin kartaa but let's do by scientific okay mode kana taabane mode marka aad taabato kadib marka then waxa leedahay marka equation waxa kugu taagan number 5 waxa taabanana number 5 aad taabanay marka number 5 marka taabato kadib waxa ku soo baxay equation-ka powerkiisu waa imisa marka powerka maanta ay haysan waa maxay anaga marka waa d cubic maadaama marka waxaan doonaynaa power 3 number meeqa u taagan number 4 u taagan 4 aad taaban marka okay d cubic marka horgalaheedu waa maxay marka waa 1 okay d square waa maxay ba yani horgalaheedu d square wuu naga maqan tahay maxaa ku dhacsan marka 0 waa marka 0 waa leena marka d yani square way naga maqan tahay okay d power 1 iyana powerkeedu waa meeqa waa minus 13 okay godka ugu dambeeya waa maxay asagana marka waa 12 marka gelinay marka dan waxaana marka equal aleena marka equal marka ana marka waxayna soo baxay solution keeni yani maadaama ay cubic ay tahay saddex qiimo karna anaga marka x1 kan wuxuu kula mid yahay -4 okay qaybtan labaad waxay kula mid tahay 3 halka godka saddexaad uu kula mid yahay 1 marka solutionka anaga noo soo baxay waxa weeyaan marka d-dan waxay kula mid tahay -4,3,1 soo waxa leena marka maadaama saddex value ah haysan marka complete solution keena okay waxay kula eg tahay only cf why am I cf kula isticmaalna complementary function oo kaliya maxaa isticmaalna complementary factor oo kaliya maxaa isticmaalna because it equal to 0 it's homogeneous so there is no bi marka waxa leena marka cf taa marka waxay kula mid tahay marka c1 e power m taada kood meeqa haysataa marka yani saddex aad haysta mid ka artaa soo hormar ka kartaa no problem but it is better to write in standard form means kan ugu yar ka bilaw yani -4 kan ka soo bilaw 1 ku xujid 3 ku xujid qaabkaas ugu fiican laakiin qaabka doonta qori kartaa wax problem ma leh anana marka -4 into x plus c2 e power 3x plus c3 e power x complete solution keena waa inoo kaasaa marka complete solution keena waa inoo kaasaa halkaas ku egtaa marka okay then let's do one more example kan labaad inta asagana aan diyaarina marka aan diyaarina symbolic form ahaan symbolic form qaabkee loogu diyaariyaa marka waxaa loogu diyaariyaa dy by dx ka waxa u qaadanaya inay tahay
d square يعني d haan u qaadanaya maadaama square ee taana maanta d square noogu soo qaad marka waxaan leenahay d square minus 3d minus 40 whole into y waxay kula mid tahay 0 halkaa markaa taagantaa marka waxaa loo yaqaanaa intaan markaa waxaa loo yaqaanaa symbolic form symbolic be here okay symbolic form ayaa loo yaqaanaa marka symbolic form marka loo yaqaano marka intaa dhaxaa ka soo qaadanayna anaga marka waxaa leenahay d square minus 3d minus 40 waxay kula mid tahay 0 kan waxaa loo yaqaanaa auxiliary equation kana stv gelinayna marka waxaa leenahay more ayaa taabanaya more markaa taabato equation number 5 dooro powerkaaga waa imisa maanta powerkeena waa 2 powerkeena 2 markuu yahay waxaan dooranayna markaa number 3 aan dooranayna okay powerka ugu horreeya marka horgelis waa imisa waa 1 waxay noo gelaysaa 1 equal okay powerka labaad horgelis waa maxay waa minus 3 equal powerka saddexaad yani tira saddexaad horgeleed waa maxay waa minus 40 then waxaa leenahay markaa solutionkeena meeqa kula mid yahay markaa x1 keena wuxuu kula mid yahay d waxay kula mid tahay 8 minus 5 maadaama d square ay ka bilaabanaysa laba solution oo kaliya yeelanaya marka so marka waxay noo soo baxday 8 iyo minus 5 so marka complete solution keena aan qorno marka yc into x waxay kula mid tahay complementary factor oo kula mid ah c1 e power minus 5x minus 5x plus c2 e power 8x halkaas aan ku tagaynaa marka that's all completed okay then let's do one more example kan aan tanaysana oo kale aan u qorno kale marka ugu horeysa horta symbolic form symbolic form sidoo noqonaa marka d cubic minus 9d plus 23d minus 15 whole into y is equal to 0 qaabkan waxaa loo yaqaanaa marka symbolic form ayaa loo yaqaanaa marka symbolic form ka dhaag soo tagana marka aqoon marka waxaa marka auxiliary equation waa maxay inta dhaxaa soo qornay y oo kaliya soo tagay marka waxaa leenahay marka d cubic minus 9d plus 23d minus 15 is equal to 0 homogeneous waa mas'aladeena y homogeneous ku tahay is equal to 0 maadaama equal to 0 ay tahay homogeneous markay taana waxay la doontaa oo kaliya complementary factor oo kaliya noo soo bixi doona marka okay certificate aan gelin marka jawaabta noo soo baxda aan fiirino certificate haddii aan gelin marka waxay noo noqonay mode noo taabo then powerkeena maanta muxuu ka bilaabanaa 3 ayuu ka bilaabanaa waxaa leenahay marka number 5 powerkeena 3 ayuu ka bilaabanaa number 4 inoo door marka okay horgala ugu horreeya meeqa haysanaa 1 okay horgalaad meeqa haysanaa minus 9 horgalaad saddexaad meeqa haysanaa 2 horgalaad afraad meeqa haysanaa minus 15 so marka masalada marka xalin kadib marka maxaa inoo soo baxaya marka okay let me start the scientific again or let me write the value direct okay qiimaha waxaa inoo soo bixi doono 1 iyo 5 iyo 3 1 iyo 5 iyo 3 d waxay kula mid tahay 1,5,3 ab scientific okay let me try number 4 then it will be 1 minus 9 plus 23 minus 15 it will be like okay haddii astiviga gelin waxaa inoo soo baxayo qiimaha koowaad waa maxay waa 1 qiimaha labaad minus 9 qiimaha saddexaad plus 23 waa meesha minus 23 aan ka dhigay minus 15 waxaa kusoo baxaysa markaa godka hore inuu yahay 1 godka xog inuu yahay 5 godka xog inuu yahay 3 waa 1 iyo 5 iyo 3 then marka complete solution keena marka yc into x kaaga maxay kula mid tahay marka complementary factor kaaga kaliya kula mid tahay maanta b yani horta guud ahaan maxay ahaa jirta qaacidada complete solution kaaga maxaa lagu wada jiray cf plus bi ayaa lagu wada jiray soomeen plus bi maanta waa bi ay u tagayna mas'aladana waa homogeneous it's equal to 0 maadaama equal to 0 ay tahay ma loo baahan marka waxa la raado bi in la soo qoro marka complementary factor kan marka waa meeqa marka waa c1 e power x plus c2 e power 5x plus c3 e power 3x okay marka insha Allah taala halkaas ayuu nagu ekaan doonaa ciwaankeena ugu horeeya oo loo yaqaano ruleka ugu horeeya oo yani lagu maamulo biobreaking methodka adigoo isticmaalaysa homogeneous kaaga sidee loo xaliyo xaqiiqatan wax culays ma laha videogan anigana revision ay tahay imtixaankii aan ku diyaarsanayaa walaalaheen way anfici doontaa ragga gadaal loogu imaan doono way anfici doontaa oo maadada loogula soo biiri doono electrical engineering iyo guud ahaan engineering waa la wada qaadan doonaa maadadan marka waxaan aad ugu boorin lahaa dhammaan ardayda in insha Allah tacaala dhiirigeliyaan ardayda naga dambeyso ayagana sidaas lamid ah waxuna iska reebaan waa xilli ugu fiicneedu 10 aad duubi kartid waa xilli ugu fiican yani oo jaaniskaaga iyo yani attentionkaaga intiisa badan uu joogo wax badan ay ku diyaarsan imtixaan ku diyaarsantaa
haddii imtixaanka laga baxo way adkaanay in wax lasii wada xasuusto. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad waa mahadsantihiin.